Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wareegto ku magacaabay guddiga dib u heshiisiinta iyo wadahadalada dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo Somaliland. Waxaa warbaahinta la hadlay agaasimo ku-xigeenka warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xaashi oo faahfaahin ka bixiyay wareegtada ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Soomaaliya isla markaana lagu magacaabay guddiga dib u heshiisiinta wadahadalada dowladda Soomaaliya iyo Somaliland. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta xeer madaxweyne ku magacaabay guddiga dib u heshiisiinta iyo wadahadalada Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland. Madaxweynuhu markii uu arkay ahmiyadda weyn ee ay leedahay iyo qiimaha ay ku fadhido dib u yegleelidda qaran Soomaaliyeed oo midaysan kuna dhisan mabaadi'da tala wadaagga wadaniyadda cadaaladda iyo isku duubnaanta. Markii uu arkay in ay lagama maarmaan tahay in dib loo bilaabo wadahadaladii u dhaxeeyay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland, kuwaas oo ay ujeedadoodu ahayd in xal waara oo miro dhale laga gaaro tabashooyinka walaalaheen Somaliland. Madaxweynuhu markii uu dhageystay waxa uu tixgeliyay talooyinka ay soo jeedinayaan siyaasiyiinta, mas'uuliyiinta, aqoon-yahanada, waxgaradka iyo waayeelada Soomaaliyeed ee ku aadan xal u helidda arrimaha Somaliland. Waxa uu magacaabay guddi ka kooban 6 xubnood. Waxaa gudoomiye guddigaas u ah xildhibaan Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil. Sidoo kale waxaa guddiga gudoomiye ku-xigeen u ah Cabdiraxmaan Cabdi Xuseen Gulwade. Sidoo kale waxaa jira 4 xubnood oo lafdhabar u noqon doona guddigan, kuwaas oo kala ah Dr. Cabdiraxmaan Macallin Cabdilaahi Baadiyow, Dr. Cali Siciid Fiqi, Sareeye Guuto Axmed Jaamac Muuse iyo xildhibaan Cali Axmed Jaamac Jingeli. Guddigan waxaa hagi doona oo ay ku shaqayn doonaan dastuurka iyo shuruucda dalka u yaala, waxaana waajibaadkooda ka mid noqon doona in ay dowladda federaalka ah ku metelaan wadahadalada isla markaana ay hogaamiyaan, in ay diyaariyaan daraasad tifatiran oo ku saabsan dhinacyada sharciga, siyaasadda, taariikhda, dhaqan-dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee ku aadan wadahadalada, inay tala bixin joogta u soo jeediyaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya isla markaana ay ka tala bixiyaan geedi socodka wadahadalada. Waa mahadsantihiin. Dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay ka go'an tahay sidii loo dhameyn lahaa khilaafaadka u dhaxeeya Somaliland iyo Soomaaliya si hal meel ay isugu yimaadaan isla markaana looga wada shaqeeyo danta Soomaaliyeed.